wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland ayaa maanta kormeer ku soo maray maxjarrada xoolaha lagu caafimaadiyo ka hor intaanay ka dhoofin dekada weyn ee Berbera oo ka kooban ilaa 3 maxjar oo waaweyn waxaana wasiirku kulamo gaar ah la qaatay maamulada kala duwan ee maxjarradaas iyo sidoo kale dhaqaatiirta ku hawlan daaweynta xoolaha nool intaanay ka dhoofin dekada weyn ee Berbera waxa wasiirku mid u galay goobaha lagu baaro dhiiga xoolaha nool oo ay halkaasi warbixin ka siiyeen dhaqaatiirtu ku hawlanayd caafimaadinta xoolaha nool ee maxjarradaasi wasiirka ayaa waxa halkaasi hadallo soo dhaweynaa u soo jeediyay qaar ka mid ah maamulka maxjarka United Quarantine Cabdiwahaab Ciga Axmed ayaa ka waramay maxjarkoodan iyo sida uu u shaqeeyo iyo waliba xoolaha ka dhoofa oo ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha oo maanta nagu soo booqday maxjarka yagan Berbera United International oo aan runtii soo marinay ama uu eegay shaqada maxjarkaas iyo xaaladiisa oo dhan laabkiisa hadday tahay dhaqaatiirta hadday tahay iyo qaabka uu u shaqeynayo sidoo kale xoolihii oo jooga waan ku faraxsanahay runtii inuu maanta wasiirkuna soo booqday iyadoo muxuu ahaa ay waqtigan inaa tahay waqti ay nagu soo food leedahay haddii ilaahay noo fududeeyo in carafadii la furo taasna waxa weeye sababta keentay in xoolihii soo gelayay ee dalka ka baxay u dhoofayay Saudi Arabia in si boqolkiiba looga baaro muxuu ahaa xanuunkii looga baaro sidii marka resultigii marka hadhow toolo gudbiyana waxa weeyaan qolada laftarkooduna iyagoo natiijadii dhakhtarku uu saxay oo halka markuu ka baxan xoolihii la baaro hadhow toolo xagga laftarkeedana waxa way baartaan ka lagu sameeyo si loo soo xaqiijiyo marka laabkan shaqada weyn ugu muhiimsan ee qaybtan ay qabatay waxa weeyaan in la baaro muxuu ahaa xanuunka loo yaqaano Rift Valley iyadoo la isticmaalayo mashiinka la yiraahdo muxuu ahaa Elisa marka boqolkiiba xoolaha ka baxaya maxjarkan muxuu ahaa Al-Jabiri wasiirku sidoo kale waxa uu kormeer ku soo maray xarunta kalluumaysiga ee magaalada Berbera oo ay ku xidhan yihiin dunya aad u tiro badan oo uu kalluun ka keenay dhinaca badda waxaan halkaasi warbixin ka siiyay howlaha wasaaradda iyo sida uga socdaan gobolka Saaxil Axmed Xaaji Cabdilaahi Axmed Nooje oo ah suduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga waxweeyaan war badan uma baahnaa safarkii wasiirka ayayna xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ayaa kormeerkiisii maraya marka saddexdii maxjar uu soo maray iminka halkaan joognaana waa wasaaradii qaybta kalluumaysiga duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Maxamuud Axmed Ibrahim Sandere oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa hadallo soo dhaweynaya u soo jeediyay wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga wasiirku wuxuu kormeer ku soo maray saddex maxjar ee ugu waaweyn ee qarankan uu leeyahay iyo maxjarkii kalluumaysiga oo nimanka taagan ama dekadii kalluumaysiga khayraadkan badda way naqaana khayraadka bariga waa la kala leeyahay oo nin walba sumada reekooda ku taala laakiin kan kii ilaahay baa nagu yaallay bakaalo la soo baxa oo waliba dhalinyaradu inay iyo dadka ganacsatada inay aaminaan oo khayraadkan badda wixii gacanta la geliyaba waa la iibsadaa in la soo baxo sidaa daraadeed waxa uu kurgalay hawlihii wasaaraddiisa ee la xiriiray dhinaca xoolaha nool iyo dhoofkooda iyo facilitieskoda iyo dhulka lagu caafimaadiyo iyo dhulka dhoofkaba iyo waaxdii kalluumaysiga oo aynu iminka taaganahay oo dhinacii badda sidaa daraadeed waxaanu leenahay wasiir ku soo dhawow gobolka Saaxil wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland Siciid Sulad Maxamed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay ujeedada socdaalkiisa uu ku yimi magaalada Berbera waxaanu niman kormeer hawleed ku saabsan kalluunka iyo xoolaha iyo dhoofkooda iyo wixii dhib haystay iyo wixii loo qaban karo waxaanu soo maray oo kulli ay media nala socdeen ama TV-yada qaar nala socdeen saddexdii maxjar waxaanu soo eegnay qaabka ay u caafimaadiyaan xoolaha iyo qaabka loo xanaaniyo muddada dhoofka loogu talagalay ee ay joogaan biyaha iyo calafka iyo dawooyinka iyo tallaalka wixii loo qabto waxaanu soo controlay ama aanu soo kormeeray shuruudaha inagu xidhan ee caafimaad ee dhoofka ku xidhan xoolaha inay maxjarradu wada buuxinayaan oo qalabkii haystaan oo dhaqaatiirtii haystaan oo sharciyadii caalamiga haystaan intiibana ma sha Allah waan ku soo guuleysano way haystaan wasiirku waxa uu sidoo kale ka jawaabay hadallo ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Xamar oo uu tilmaamay in uu siyaasadeeyay waxyaabo u dan ah guud ahaanba bulshada gaar ahaan mashaariicda horumarineed
ee ka socotay gobolka saaxil. ha u bateen saaxiibadii aynu berigii hore soomaalinimada ugu tagnay aynu calankeena iyo dawladnimadeena u dhiibnay oo imika xasadka ay ka gaadheen yaan berbere wax ka dhoofin yaan maalinkan maanta noolaan shacabka Soomaaliland waxaan la yaabay ninka wasiirka khaarijiga ah ee koonfurta Soomaaliya Soomaaliya dalkan la yiraahdeen jaarka nahay wuxuu ka hadlayay wadadan berbere iyo Hargeysa laga dhisayo caalamku wax aad bay ula yaabeen ninka waxa horumarka yar ee la sameeynayo ee nolosha ku xidhantay wadada cid waliba u baahantay wax laga yaabaa in qoyskooda ay xoolaha ka dhoofsadaan meelahan ilaan Soomaali berbere wax ka dhoofsataa shanta Soomaaliyeed baa ama dee la isu baahan yahay shanta Soomaaliyeed berbere iyo Hargeysa way wada joogaan yaani hooyaday iyo inaabtiday iyo eedaday iyo ehelkay midna marin buu yiri hadduu Soomaaliland baday diiday yaan loo sameyn buu yiri marka waxaasaynu ka taxadireynaa in wax dhaleeceyn ugu yimaadaan waxaan xoojinaynaa haddii aan la yiraahdo magaalada berbera sidii horumar xagga kalluunka iyo xagga xoolaha iyo xagga dekedaba u yeelan lahayd waxaynu xoojinaynaa kale cid kasta wax soo saar leh oo ama xoolo dhoofsanaysa ama kalluun ama waxa wixina taraya inta silaad loo sameeyo xukuumad ahaan dawladda hoose iyo dawladda xaba. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Somaliland, Berbera.